waxaanu ku soo dhaweynay caasimadda Puntland ee Garowe halgamaa qalas muwaadin Soomaaliyeed Cabdullaahi Balwaan oo ka soo kicitimay wadamada dibadda Cabdullaahi waxaanu leenahay ku soo dhawow walaal dalkaagii hooyo meesha tan waa caasimadda Puntland waa magaalo madaxda Puntland ee Garowe waxaadna u sii jeedaa waxa weeye caasimadda Khaatumo ee gobolka Sool oo Ilaahay mahadiha ka gaadhay aad ka mid ahayd dadkii wax ka xoreeyay oo ka kiciyay cadawgii dusha ka haystay waxa la Soomaalidu waxay tiraahdaa afku wuxuu la xoog yahay magliga xawda ka jara adiga iyo rag badan oo halka jooga iyo rag kale oo maqan oo social media-ha ah waxaad ka horeyseen ama aad la mid ahaydeen raggii xabadda ridayay ee dhiigga shubayay ee dhintay ee dhaawacmay iyo idinku waxaad ahaydeen isku mid waddankaagii oo rooban waddankaagii oo barwaaqo ah iyo gabdhaha iyagana qalasyada ah waxaan leeyahay Cabdullaahi ku soo dhawow dalkaagii iyo dadkaagii oo ku jecel oo Soomaali ah halkan waxa taagan wasiirkii arrimaha gudaha iyo dimuqraadiyiinta dawladda Puntland mudane Xasan Machabe waxa kale oo taagan taliyayaashii ciidamada qalabka sida qaybahood xildhibaan Axmed Xariir Gaas Guutaale oo ka mid ah isaguna qalasyada gobolada Sool iyo Sanaag iyo Cayn xildhibaan Puntland ah isku haya labada maamul la rabo hadda inuu farsameeyo sidii ay ama isugu sii jiri lahaayeen ama ay u kala bixi lahaayeen waxaan kaloo kugu soo dhaweynaynaa Cabdullaahi oo dhul barwaaqo ah oo rooban waxaan u maleynayaa inaad tagaysid buuhoodle inaad tagaysid taleex inaad tagaysid ayl inaad tagaysid boosaaso inaad tagaysid qardhe inaad tagaysid Puntland iyo Khaatumo waa isku mid laba dal ma kala aha laba maamul ha kala ahaadeen laakiin laba dal ma kala aha waa laba dad oo isku dhiiga oo maxaan ku raahdaa waddanka wada leh oo wada xoreeyay waxa ku sugaya jamaahiirtii oo jooga ilaa iyo meesha la yiraahdo Jiidali ilaa iyo meesha la yiraahdo Farhareeri oo buuhoodle xagaa ka sii xigta iyaguna waa ku salaamayaan waadna u tagi doontaa xoogaa saaka oo dhulku roob ahaa iyo dadka oo xoogaa kala yar waxaysan iyo madaxweynihii oo dhoofayay waxba isku soo beegmay sidaas hadda dadku xoogaa yar yahay aad yara darantay waxa weeye meel kale laga kala kicin doonaa dadku reer Puntland iyo reer Khaatumo waa og yihiin maanta inaad soo wajahan tahay oo aad joogtid ku soo dhawow waxaan ku soo dhaweynayaa wasiirka bismillaahir rahmaanir rahiim maanta madashaan waxaan ku soo dhaweynaynaa halgamaaga qalaska Cabdullaahi Balwaan oo runtii in badan bulshada Puntland iyo bulshada Khaatumo iyo dhibaatooyinka ka dhacay runtii afkiisa ku difaacay waxaan oran karnaa miidiyuhu iyada ka awood badan madaafiicida qaarkeed waqti adag ayuu soo qaatay bulshada Soomaaliyeed abaal ayuu ku leeyahay calanka Soomaaliyeed iyo guud ahaan bulshada reer Laascaanood runtii waxaan leenahay ku soo dhawow deegaankaagii iyo dalkaagii caasimadii Garowe ayaad maanta soo gaadhay gacmo furan ayaan kugu soo dhaweynaynaa insha Allah taala caasimadii Khaatumo Laascaanoodna insha Allah waad gaari doontaa sidan si ka meeqaam sareysa runtii ayaa lagu soo dhaweyn doonaa waajibkaagii ayaa gudatay ummadda Soomaaliyeed aad ku lahayd waxaad difaacday sharaftii
iyo karaamadii ummadda Soomaaliyeed waxaad afkaaga ku difaacday hooyadii iyo ilmihii lagu xasuuqayay magaalada Laascaanood runtii waxaan oran karnaa baal dahab ayaad kaga taalaa waxaan leenahay soo dhawow mar labaad iyo mar koowaad arrintan waxaan uga faa'iideysanaynaa walaalkeen inaan soo dhaweyno munaasabadda lagu soo dhaweynay magaalada Laascaanood oo runtii bulshadii ay diyaar u tahay waxaan leenahay welcome Cabdilaahi waajibkaaga ayaa gudatay laa shukra calaa waajib bulshadana waxay kaaga haysaa runtii abaal weyn in aad maaragtay maanta ay iyagana kugu abaal celiyaan wax kale kuma tari karaan inay ku soo dhaweeyaan si fiican runtii ay ku soo dhaweeyaan soo dhaweynayna halgamaaga weyn halkan laga jecel yahay balwaan oo Soomaalidu ay wada taqaan inteeda badan balwaan ma ahayn oo kaliya inuu Soomaalida kala jecel yahay waxay ahayd inuu xaq u hiilinayay haddii inaga xitaa xaq darre ku jirno inuu inaga hiilin lahaa oo ina qaban lahaa taas oo ah dadnimadiisa iyo damiirkiisa wanaagsan marka sidaa awgeed wuxuu diidayay in cid ka gardarnaato sababtaas ayuuna maanta ku mutaystay inaynu halkan ku sugayno inuu yahay nin xaqa u hiiliya oo cadaaladda u hiiliya oo dadnimada u hiiliya oo damiirkiisu wanaagsan yahay waxaan leenahay ku soo dhawow dhulkaagii hooyo awalba dee dhulkaagii ahaa haddana si gaaraba aan kuugu soo dhaweynayno waxaa ka sugaysa soo dhaweyno ka waaweyn kuwan oo sida hadda gobolkii Sool oo kale waa lagaa sugayaa gobollo kale waa lagaa sugayaa Cayn waa lagaa sugayaa marka waxaan leeyahay soo dhawow saaxiibkay Cabdilaahi Balwaan waxaan leeyahay ku soo dhawow Garoowe sharaf iyo karaamo ayay ii tahay in aan saaxiibka ku soo dhaweeyay magaalada Garoowe anigu intii u dambeysay waxaan noqday reer Puntland Garoowe xarunii ahayd muddo 3 bilooda aniguna inaan maanta kugu soo dhaweeyaan kaaga hor imaado airportkii Garoowe waxay muujinaysaa in qadiyadda SSC ay ahayd qadiyad Soomaalinimo ay ahayd waxa weeye qadiyad ka weyn mid qabiil haddii qabiilnimo la eegayo aniguna nin isaaqaanahay aduguna nin hawiyaabaad laakiin qadiyadda waxa weeye reer Laascaanood qadiyad ka weyn midaas ayay ahayd saaxiib magaaladii Laascaanood roog casbaa ku yaala dhammaan jamaahiirta waxaan u sheegayaa saacado kadib inuu ku soo wajahay magaalada Laascaanood haloo diyaar garoobo meel walba saaxiib waxaan ku leeyahay ku soo dhawow deegaanada waxa weeye Puntland iyo SSC maanta halkan waxaan ku soo dhaweynaynaa halgama Cabdilaahi Balwaan oo ogsoonahay run ahaantii qaybtii lixaad leh uu ka qaatay halgankii ka socday magaalada Laascaanood waxaan leeyahay abwaan Soomaaliyeed baa wuxuu yiri habeenkiiba uu ibidan lahaa bahalkii cawnaaye raggii buurta dheer igala baxay beerka ka ogsooni Cabdilaahi waxaan leeyahay beerka ka ogsoonin haddaan nahay dhalinyarada reer Laascaanood halganka qayb weyn ka qaadatay run ahaantii Laascaanood iyo Puntland iyo magaranaysaa Garoowe waa isku mid tan sida lagu soo dhaweeyay baa si leeg baa lagu soo dhaweynayaa deegaankaagii dalkii udug ahaa ku soo dhawow deegaankii daraawiishta ku soo dhawow run ahaantii beerka ka ogsoonin baan leenahay haddaan jamaahiirta gobolka Sool bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulilaahi rabbil caalamiin waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan maanta soo booqdo imaado dhulkii uduga ee Puntland waxaan aad iyo aad ugu qanacsanahay imaatinkan dhulkan uduga ah ee Puntland magaalada Garoowe inay tahay mid taariikhi ah waa sax waa markii ugu horeysay laakiin markii dhinac kale loo eego waa markii ugu qiimaha badnayd oo taariikhiyan aan dhul Soomaaliyeed aan booqdo waxaan halkan uga mahadcelinayaa wasiirada xubnaha ka ah maamul goboleedka Puntland waxaan kaloo halkan uga mahadcelinayaa xildhibaanada sharafta leh ee qayb ka ah maamul goboleedka Puntland waan hubaa ummadda Soomaaliyeed inay marqaati ka noqon doonto aniguna waxay marqaati calaamadba u tahay in shacabka Soomaaliyeed laga jecel yahay Puntland iyo Qaatumo marqaati ma doonto waxaan joogaa Garoowe qof Soomaaliyeed oo maanta halkan ka dheehanayn ma jirto Soomaalinimada iyo qiimaha bulsho yahay reer Puntland waa mahadsantihiin waan idin sii joogi doonaa hadduu alla idmo waxaan u sii gudbi doonaa Qaatumo tuulo kasta iyo deegaan walba oo jabhadda SNM aan afkayga kula dagaalamayaan tagi doonaa waxaan tagi doonaa Goojacadde waxaan tagi doonaa Guumays waxaan tusi doonaa kuwii irir Soomaali duulinayay
in cabdilaahi balwaan uu tegi doono goobtii aan shalay aniga ku faanayay in aan maalin uun guusha aan ka keeni doono hadduu alla idmo bahda saxaafadda saaxiibadayda sharafta lena waan idiin mahad celinayaa